waad salaamantihiin kulligiin meel kastooda adduunka ka joogtaan waa aar maanta oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan 3 usbuuc ee la soo dhaafay ku sugnaa 3 xero qaxooti oo ku yaala agagaarka magaalada Jigjiga anigoo marti u ahaa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee ku magac dheer UNHCR hay'addaas oo waday barnaamij loo yaqaano soo bandhigga xaqiiqada runta ah barnaamijkan oo ii suurtageliyay inaan booqdo lana kulmo ummadda Soomaaliyeed ee degan Seedeer Qabri Bayax iyo Awbari waxaan fursad u yeeshay inaan hawl faneed la qabto ardayda abwaaniinta iyo fanaaniinta ku sugan 3 xero qaxooti haddaba anigoon hordhac idinku dheerayn bal ila dheehda heesaha aan idiin diyaarinay mid ka mid ah heestan oo idiin soo diyaariyeen kooxda fanka ee xerada qaxootiga Awbari نولاتيو لغاديغا كوفصحي أرور أبغيستيو نعاويتنا اسمسيا إنا نولاتيو لغاديغا كوفصحي شيطان كيون يا ذا بني هودو لفتي يا شيطان كيون يا ذا بني هودو نفتادا هو دلدلين دادان نرلقو قريو نصيب الليلتيو نصنع قضاء اللهي نصيب الليلتيو نصنع قضاء اللهي مكفيك نوريين كبنع ميستان تهريب هوديغا نولان نفتادا هوي نفتينا نفتادا هو دلدلين دادان نرلقو قريو نصيب الليلتيو نصنع قضاء اللهي نصيب الليلتيو نصنع قضاء اللهي نتيجة في عنيو نحفي قيبا بحشيه نسو جاقا وحبارو نظفتا وقهرين نظامكو هكو اسمه نتيجة في عنيو نحفي قيبا بحشيه نسو جاقا وحبارو نظفتا وقهرين نظامكو هكو اسمه تهريب هوديغا نولان نفتادا هوي نفتينا نفتادا هو دلدلين دادان نرلقو قريو نصيب الليلتيو كسونو قضاء اللهي نصيب الليلتيو كسونو قضاء اللهي نتيجة في عنيو نحفي قيبا بحشيه نسو جاقا وحبارو نظفتا وقهرين نظامكو هكو اسمه نتيجة في عنيو نحفي قيبا بحشيه نسو جاقا وحبارو نظفتا وقهرين نظامكو هكو اسمه تهريب هوديغا نولان نفتادا هوي نفتينا نفتادا هو دلدلين دادان نرلقو قريو نصيب الليلتيو كسونو قضاء اللهي نصيب
dheer jiro kasoo noqodaan lahay nasiib meel dheer jiro kasoo noqodaan lahay nasiib meel dheer jiro kasoo noqodaan lahay sidaad heestan ka dareenteen barnaamijka soo bandhigga xaqiiqda runtaahi wuxuu ku saabsan yahay tahriibka arrintan oo saamaysay ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunka ka joogaan aniga laftayda arrintani way saamaysay kadib markii dhowr qof oo ehelkayga ahi ay tahriibeen dhibaatadan daraaddeed sannad ka hor waxaan ka soo saaray heesta la yidhaahdo tahriib heestan oo uu qoray abwaanka soomaaliyeed ee aadan muuse haybe isaga laftiisu aadan wuxuu ka qoray heestan arrin naxdin leh oo ku saabsan tahriibka haddaba markaan heestan soo saaray kadib ayay hay-adda UNHCR iga codsatay inaan booqdo xerooyinkan ummad ku sugnaan jiray ay tahriibeen iyagoo kuwana naftooda ku waayey kuwana badbaaday gaadheenna meeshii ay doonayeen bishii 12aad ee sannadkiina soo dhaafay ee 2016 ayaan booqday qabre bayax sheedeer iyo awbarre si aan ula kulmo isuna soo bandhigno xaqiiqda noloshooda tan qurbaha iyo waxyaabaha lagala kulmi karo socdaalka tahriibka haddaba waxaan ka filayey iyo waxaan kala kulmay xerooyinkan ayaa kala ahaa 2 intaanan arrintan u guda gelin bal hadda mar labaad aan idinla wadaago heesta labaad oo ay idiin soo bandhigayaan kooxda fanka xerada qaxootiga ee sheedeer tartan weeye dunido ubaashi tartan weeye dunido ubaashi tigsiga nololeed tacab iyo wax soo saar tallaabooyin horumara waxaa taabagelin karaa tabaabushaha aqoontiyo digsiga iyo tacliinte tabaabushaha aqoontiyo digsiga iyo tacliinte digsigii nololeed tabaabushaha aqoontiyo tallaabooyin horumara waxaa taabagelin karaa tabaabushaha aqoontiyo digsiga iyo tacliinte tabaabushaha aqoontiyo digsiga iyo tacliinte
Obeya, obeya, obeya. tusaaliyo waanada Madara taariibka weeye. nimantiyo sheekada Taariibkaga maran weeye. Ummad yahay tacliin baro. Taariibkaga maran weeye. Ummad yahay tacliin baro. tuducdiyo maansada Obeya, obeya, obeya. tusaaliyo waanada Madara taariibka weeye. nimantiyo sheekada taariibkaga maran weeye. Ummad yahay tacliin baro. Taariibkaga maran weeye. Ummad yahay tacliin baro. Taariibkaga maran weeye. Ummad yahay tacliin baro. isma lahayn waxaad kala kulmi doontaa xerooyinkan qaxooti fannaaniin abwaaniin iyo muusikiistayaal heer qaran oo ka mid ahaan jiray kooxihii aad loo yaqaanay ee halgan iyo durdur isma lahayn iyagoo ay duruuf badani ah haysato ayay haddana idiin soo bandhigi doonaan riwaayado heeso iyo qoraallo heer sare ah oo ku saabsan tahriibka arrintan ayaa aad ii dhiirigelisay ina tustay in sidii fanka soomaaliyeed dhaqanka u ahaan jiray isuna xil saareen wacyigelinta bulshadooda waxayna ii sheegeen in haddii ay heli lahaayeen taageero qalab iyo fursado bandhig faneed ay wacyigelinta iyo madadaalada ummaddooda aad u sii xoojin lahaayeen socdaalkii hore ee disembar ee sanadkiina soo dhaafay ee 2016 kadib waxaan ka codsaday hay-adda UNHCR fursad aan kula hawl galo asxaabtiina soo dhoweysay waxaana ii suurto gashay inaan ku soo laabto xerooyinka qaxooti si aan u duubno 3 heesood oo ku saabsan barnaamijkan soo bandhigga xaqiiqda runta ah haddaba balayla daawada heestii 3aad oo idiin soo diyaariyeen ardayda abwaaniinta iyo fannaaniinta xerada qaxootiga ee qabri bayax dhaqan xumada maantiyo dhibaatada tahriibke dhalan rogtay dadkeeni dhaqan xumada maantiyo dhibaatada tahriibke dhalan rogtay dadkeeni walle dhibasha mooye dheef ku gaadhi mayne walle dhimasha mooye dheef ku gaadhi mayne saxaaraha dhibkiisiyo isku dhiibka magafaha ninkaa dhayasado maqal saxaaraha dhibkiisiyo isku dhiibka magafaha ninkaa dhayarsado maqal hooyada dharaarahan anfaaciga ma dhuunyato ma dhaadhamiso oonto taleefoonkii soo dhacay lacag buu dhaliidhiyo dhibta hooyo wow taleefoonkii soo dhacay lacag buu dhaliidhiyo dhibta hooyo wow dheelalow habeenkii hurda dhinac ma saarte dhinaceeda yaa qabaan adiguna dhaqaaqde dhibtayaa la qaybsani mahad allaale marka ku xigta waxaan halkan uga mahad celinayaa hay-adaha iyo shaqaalaha noo suurtogeliyey inaan hawshan isku dubaridno sida ARA UNHCR
iyo barnaamijka soo bandhigga xaqiiqda runta ah khaasatan xafiiska jigjiga waxaan kaloon halkan uga mahadnaqayaa hay-adda filim qaadidda loo yaqaano Hownet Films oo farsamadeeda iyo hawsheeda ay aad u sarraysay ugu dambayn waxaan halkan uga mahad celinayaa ummadda ku sugan xerooyinka qabri bayax sheedeer iyo awbare oo dulqaadkooda iyo dadaalkooda la'aantood aanu barnaamijkani noogu suurtogeli lahayn waxaanan rajaynayaa in abwaaniinta iyo fannaaniintu ay hawsha halkaa ka sii wadi doonaan hay-adaha ay martida u yihiinna ay ku taageeri doonaan adima weeyaan taribtu warbuu agardama weeye haddana halisiyo dhibaato dadkii kama hawl yarayso miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaroo helaynin miyaan kusoo sheegin Otokamnu biadidu biajala magasidu